وسير هذا الحكومة سوماليلاند كسعودية أو كلا وسير كجاشاندقة أحمد حاج علي عظمي وسير كهرمانين الهرمية يدقان كمحمود سعيد قعمي يوسير كحيان كوسارة مالية ورسمة سعيد قبنو oo ay weheliyaan xildhibaano golayaasha qaranka iyo xubno kale oo iyaguna xukuumadda ka socday ayaa iyagoo muddo 3 habeen soo kala gaadhay magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo waxay maanta bulshada Ceeri Gaabo kulan guud kula yeesheen howlka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag halkaas oo ay kaga xog warameen xaaladda iyo ujeedada uu salka ku hayo socdaalkoodani madashan oo ay goobjoog ka ahaayeen maayarka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaashin Nuur barasaabka gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre madaxda kale ee laamaha dawladda heer gobol iyo degmaba madax dhaqameedyada beelaha Sanaag aqoon-yahanka guddiga nabadaynta beelaha Sanaag iyo marti sharaf badan oo isugu jirta qaybaha kale ee bulshadu ka kooban tahay ayaa ugu horeyn waxa halka ka hadlay maayarka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaashin Nuur waxay noo yimi wafdi heer qaran oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah wasiiradii gobolka Sanaag saddexdii wasiir aan soo qaadayba ودجانكا وقبل كسناك وهاي نور السعودان يوي عرنا إياه إنه فاهينيا كل ما وحنا أركين تحاكوي وسيرو وعندكم سلام إلى بغلة برتان بقرانكا وادشود وينينا ذكر وذكي رجال أرقام وحكرت كها واللي يسوقي أنا قلنا هذه البنو أكثر نهاي واحد طبعا قبلنا مشرو الباطل يدو حوي وأبارو أبارو شرتا وقت ودوا وقت شيلالا ولله الحمد لله إن الحمد لله قسوي نبغى لي حمو يردي باطل مقبلو آلي أبانو مهذينا إلهي ذكر هير سناقنا أبانو مهذنقينا barasaabka gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre oo isaguna halka ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa waftiga heer qaran ee ka socda xukuumadda ama golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka madaxda kale ee iyaduna waftiga la socota uqaasha isimada waxgaradka مسؤولية اللامها الدولة دمانتي وحنا لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وحي إلى تهيني وقت حضنت هاي قراءة حكومة أي هو قبل كي يظهرنا أي سيتشوك تاعي ويمانيين إلى ما ترم هو سيبل على ويمادين تاسنا وحوي وحيجي يوم حولها قرنكم دنيا بدن تابنايا أما هات هرمركا أما هات النبتجلية أما هات السياسة أنت بقى إلى يكون كلام حالة الجبل أي يوصلان عند وقت تانا وإنك هو هذا الدنيا إنه كال منه وإنه كال منه هاوشوا إنه كال منه وإنك والشعب كنا يمسلين كان هو هذا الجبل هذا الجمل إنه كال منه وتشدد أيوة الصعدان أما هو حلا أيوة الصعدان ويسقرب تاعنا أيه هو مهينة وأنت هدي عن هو هاي يركب حيو وما يركب خاطي أنا قمانتا واحد بقى ما قبنا لبديس كمان ما أطول لكن واحد للشيء مكروه بقى هو عن مقابلنا ما شفته وحكي لقول تاعنا هو هوشة وما يركب شيء أخباري وحكي لي وقت كي لبلغنا ولا ما ذي هالشيء شيء هوشي الوجه أنت هسكدبنا حبني وفتجا هالك ددوينها كلها الله أيها وحكم ذها حل ما بلغاس runtii gofernatoraha sharaxaad ka bixiyay qaabkan u socono wacyigelin baa horta la marwan ah inaan dadka balgaarsiino wixii nabadgelyada sidii lagu soo qabaari lahaa si nabadgelyada iyo waxyaalaha ay muhiimka ah shaqooyinku keeni kara looga digtoonaado iyadoo ay shaqooyin fara badan oo siiro daba jooga ay ka dhaceen gobolka Sanaag waliba magaalada Ceergaabo runtiina أنا أقول ما هبنا قيو بدونها غير عند قابل سوى نكسب حلية أنا تبي لو توكل كذا على وحنا نروح إمي كان أروح كلمة جيرانه حالدو بالعيب بدل بيكم بكسيه هنا إن بتقليه ده وحلا يرادو حوتشيو
isagoo ka hadlaya maamulka dhawaan lagaga dhawaaqay deegaanka Taleex xildhibaan Bulqaas waxa uu intaa ku sii daray maamul goboleedka markaana waxaan soo jeedinayaa in ilaahay khaatimada waafajiyo way ka digtoonaadaan oo nabadgelyada ilaaliyaan waxyaalaha ay ku jiraan ka baxaan niman tolaba anagu haddaan warsageyn halafteedu tabashada way jirtaa waxba inaga wada maqan qaabkeenu raadsan lahayn ayaa loo baahan yahay asabur jamiil baan leeyahay wayna wada duulaynaa inaga daayo waxaad wadaan iyo mashaakilaadkan iyo waxaan garanaysaa dhibka inoo keenaya xukuumaddana waxaan soo jeedinay madaxweyne 10 jeerada horena waan u sheegay dadka xuquuqdooda madaxweyne waa laga rabaa haddii aan rabin in maamulku haysto oo dawladnimadu socoto oo ay jirto waa in xuquuqda dadkaasi lahayn barnaamij kala soo dhiga haddii kale dadka kala dirina waxa iyaguna kulankaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Warsame Siciid Gabanow iyo wasiirka horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Maxamuud Siciid Gacmay ugu dambeyntiina kulankaas waxa soo xiray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ahmed Xaaji Cali Cadami dhacdadii naxdinta lahayd oo dhacday oo beelaha dhexdooda ahayd inaan cidina xagga ka soo gurman xataa guurtidayadii khayrka qabtay waa soo celiseen oo waa soo faataxayseen oo waxa tidaahdeen annaga ku filan isu kaayadaay midhaana ka soo baxay midho taariikhiya oo baaldahaba ku qormaaya baa ka soo baxay kulanka ay isugu timaadeen oo kelida ku noqoteen oo beelihiis qabtay mooye kuwii kale markaa gurmadka galeen Somaliland iyo xataa Soomaalida kale oo xamar cid dooratay oo tiri ergaabo ilaah uu iga beer ma jirto laakiin qadar ilaahay baa qadaray intan inay ku wada noolaato sanad waa la isku khasban yahay in la helo xal ah sidee nabad ugu wada noolaana waxaan leedahay dadka bayna dhahar baa tagayna waa dhaafayna waa anagoo nabada baynu halka isugu soo noqonaynaa duruufaha jira bay ka mid tahay مثلا واحد باتاع وانسادين حتى هذا نتقننا مثلا فتحك الاخرين بينتنا وضعنا اخرين عبد الله حسين درويش اودوين نيوز عريقابو